golaha joognay su'aalo badan inooga yimaadeen motion aanu qornay oo aanu rabnay in laga doodo xiriirada dibadda iyo heshiisyada dawladdeenu la soo gasho ama afgaradyada ay la gaarto dawladaha kale ama kuwa jaara ha noqdaan ama qaar kale ha noqdaan mooshinka su'aalaha nalaga weydiiyay saaka saxaafadu naga weydiisay wali waa mooshin aan la hor keenin golaha laakiin aanu ku heshiinay in sabtida laga wada hadlo marka ma garan karno meesha ka hesheen wararka iyo sida ay u gashay website-yada laakiin su'aalihii maadaama ay nagu bateen in saxaafadu mid noogu timi ay su'aalo naga weydiiso mooshinka waxaanu rabnaa inaanu idin la wadaagno mooshinkaasi inuu jiro sabtidana aanu idin xaqiijino in sabtidana la raaci doono la marin doono habraaci rasmiga ahaa ee goluhu uu mooshinada ku qaban jiray marka mooshinkaasi wuu jiray laakiin wali lama aqbalin oo wali guddoonku la yaala waxaanay ahayd in sabtida habraaci rasmiga ahayd la mariyo laakiin si aanan garanaynin buu u baxay oo uu u galay saxaafadda waa jira laakiin waxaa jira waa ogtihiina waxaa jira warar sheegaya oo ila wareedyo muhiima ka yimi oo sheegaya in Soomaaliya soo gashay heshiis saddex geesooda oo ay qayb ka yihiin dawladda Ethiopia iyo Eritrea heshiiskaasi walaac uu ummadda Soomaaliyeed ku abuuray walaacyada ummadda Soomaaliyeed uu ku abuuray waxa kamid ah in dawladda gobolka ay nagula taalee walaalaheena Djibouti heshiiskaas aanu aaminsanahay in lagu go'doomiyay oo aanay qayb ka ahayn arinta waxa rabnaa inaan dareen kayaga cabirno oo aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno oo aan u sheegnay in aan ummadda Soomaaliyeed raali ka noqon doonin heshiis gobol oo walaalaheena Djibouti ay ka maqan yihiin waxa kale oo aynu garawsanay oo hadda warar ilad wareedyo muhiim aanu ka helay in mooshinkaasi uu baritaarayo dawlad walaalaheena Djibouti ka haysata dhul iyo dadba marka waxaan u aragnaa inay qalad tahay ummadda reer Djibouti oo ay ogeydeen halgankii ay u soo mareen in dawladnimada Soomaaliyeed dib loo soo celiyo oo ay dawladdeenu noqoto dawlad mar labaad cagaheeda isku taagtay in loogu abaalguday inaynu ka hadli kari weyna ama aynu qayb ka noqono heshiisyo looga gol leeyahay in lagu go'doomiyo oo looga hiiliyo dalalkii ay geeska isku hayeen ama dalkii ay geeska isku hayeen ee muranku ka dhaxeeyay waxa kale oo aanu rabnaa in aanu muujino walaaca aanu ka qabno heshiiska waxa qayb ka ah oo naloo sheegay in la keenayo ciidamada Eritrea in ay ku soo biirayaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM taa waxaanu ka rabnaa inaanu halkan ka muujino walaaca aanu ka qabno kaliya ma aha Eritrea haddii heshiiskaasi jiro Ethiopia oo ciidamadeedii nala joogaan iyo Eritrea oo ciidamadeedii ay imanayaan u malayn maayo inaynu midnimo la geli karno sababtoo ah dalkaba markaa waa la qabsanaya haddii dalkii aad kala hadlaysayba midnimada ama mid dhaqaalaha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto si kasta oo loo dhigaba dalkii ay wuxuu ku midoobaysan haddii ciidamadiisi kula joogaan oo ay qayb ka yihiin nabad ilaalintaadii way adagtay midnimada noocaas in qayb laga noqdo marka taana waxaanu ka digaynaa waxaanu ku baaqaynaa in ciidamada Ethiopia ay ka baxdii heshiiskaasi jiro in ay ka baxaan AMISOM oo ay dalka nooga baxaan waxa kale oo uga digaynaa ciidamada Eritrea in aanay dalka iyaga iman maadaama heshiis noocaasi laga wada hadlayo hatta haduu yahay mid dhaqaale kaliya ku saabsan heshiisyada anagu ma garanayno waxa ku qoran xukuumadda waxaanu ka dalbanaynaa heshiisyada noocana in la hor keeno golaha si ay ummadda Soomaaliyeedna noola ogaato waxa heshiisyadu yihiin annaguna aanu uga doodno hadii danta qaranku ay ku jirto aanu uga doodno aanu isla aragno hadii aanay danta qaranku ku jirinna aanu diidno oo aanu ummadda Soomaaliyeedna ay ogaato halka aanu ku diidayno